السلام عليكم. السلام عليكم. maxaa lagu sameeyay maxamed? hay xagee loo gudbiyay? qolka koomada ma loo ogol yahay adiga inaad la joogto mise waa lagaa soo waday? sidee keligiis yaa looga tagayaa marka? maxamed caaw wuxuu joogaa keligiisuu jooga. waa maxaa ku yidhahda markaan tagno oo dhahno safiirka dalka Turkiga aan alfiisahana sii wuxuu leeyahay ne zaman geli gormaa imaanaysa halka mar waa meyd maxamed oo la dilay oo la qarinayo oo haddana la yiri meydkii xataa ma qaadanaysa waa la karantiila. waan qaylinay oo aan hadalnay marka waxaan ka codsanayaa mas-uuliyiinta iyo madaxda Soomaaliyeed aabba Soomaaliyeed oo leh war isiiya meydka ilmahayga. magacayga Aamina leedhaha, Aamino Maxamed aa leedhaha. macnaa 10 ruux bini'aadan oo iiga tagay marka dharaan iska dhaqdaa ani waan iska xanuunsanaa buraa minka iiga taalo marka buradaas oo qaawaalkii oo buradan liiqalla hooshiis ku jiro ku geeriyoodo. dadkii Soomaaliyeed dhibaata haysata aad bay u dhibaataysan yihiin, dabadahay ku dhibaataysan yihiin, dalkay ku dhibaataysan yihiin. raggii baa ooyaya oo barooranaya laa ilaaha illa allah, gabdhihii baa barooranaya ilaahow dadkaaga iyo dalkaaga adaa iska leh, ilaahow Soomaali ka soo gaar. bismillaah, salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu. asxaabta sharafta leh, qiimaha badan, qaayaha badan, waa mar kale iyo muuqaal cusub. bartan aad iga dheeganaysaanna waa bartiinii, waa barteennii, waa bartan ku kulmi jirnay. waa ka hamiliyo baro. aad iyo aad buu mahadsantihiin walaalayaal. kusoo dhawaada meel laydinka jecel yahay. walaalaha qalbiga sii share gareeya barnaamijka, asxaabta la wadaaga, channelka subscribe inoo saara. marka koowaad alle subxaanahu wa tacaala baan u mahad celinaynaa, mahad ka mugya miisaan weyn dunida dhammaanteed. mar labaad war channelka like inoo saara, war channelka subscribe inoo saara. like meel dheer bay ina gaarsiinaysaa. subscribe channelka inoo saara. salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam suubanaheena ha hilmaaminina. waqti salaa hadday idin tahay yaanan idin mashquulin, orday iska taga, soo tukada, kadib isukan keena. intaa kadib waxaan soo qaadanaynaa bal dhowr barnaamij. marka koowaad Dr. Cabdisalaan wiilkiisii ayaa Turki dishay, cusbitaalkii lagu dilay. markaasaa cadaalad darro, allahu akbar, inta la dilay oo cunugii cusbitaalku turjubaanka ka ah lagu dilay oo nin dhakhaatiirta ka mid ah dilay baa cusbitaalkii la dhigay. markaasaa hooyadii la karantiinay oo la yiri waa karantiin. hooyadiisa la soo daayay isagii oo kooma ku jira oo inuu meyd yahay loo malaynayo baa xataa la sii karantiin. xanuun buu qabaa baa la yiri, wuxuu qabaa cunugu dhaawaciisa. markaan dhigagii baarnimo waxaan ka helay muxuu ahaa infection, sidaa daraadeed karantiin buu ku jiraa, cid ma arki karto. bimacnaa waxaa la diidayaa waa Turkigii lahaa Soomaaliya u gurmanaynaa oo u bahalkeen. war Soomaali ilaahay wuu maqan, Soomaali ilaahay wuu maqan. ma fahmaysa? bal meeshaan ila dhegeysta. wuxuu joogaa keligiisuu jooga. waa maxaa ku yidhahda markaan tagno oo dhahno safiirka dalka Turkiga aan alfiisahana sii wuxuu leeyahay ne zaman geli gormaa imaanaysa halka mar waa meyd maxamed oo la dilay oo la qarinayo oo haddana la yiri meydkii xataa ma qaadanaysa waa la karantiila. waan qaylinay oo aan hadalnay marka waxaan ka codsanayaa mas-uuliyiinta iyo madaxda Soomaaliyeed aabba Soomaaliyeed oo leh war isiiya meydka ilmahayga. finish aan ku aaso taada kale waxaan la socodsiinay Soomaalida haddii maxamed teedu
تيسعون بإن أي مسؤول كتهي دولة تركيا محمد يا سليمان سلمان أردوغان أنا بحي حتى جعلان قبل الصومالي المشيقين حتى كولا قاتي نوروي ملا سودان إن ميت حتى لديدو المكومة كجر hooyo haddii ilmaheeda wax ku dhacaan bimacnaa si degdega waa isaga ooyi kartaa oo xaalad xataa xaalada fudud ama haddii la ciilo oo maaragtay laakiin nin boqolla ah waxa ka oohiyaa wax sahlan maaha ogaada taa nin rag ah waliba dictor ah wax intuu public soo istaaga ka oohin karaa wax sahlan maaha ciyaar maaha waa laga yaabaa gabar inay si xoogaa dhayal ku ooydo laakiin nin raga inuu oohin noocaas ooyo bimacnaa wiilkiisii waa la dilay nin baa wiilkan madaxa ku dhuftay madaxa lagu dhuftay waliba waa nin uu ka dacwoon jiray macalla markii hore ay booliska ku dacweeyeen baa madaxa ku dhuftay ninkii madaxa markuu ku dhuftay cusbitaalka la dhigay hooyadiisoo timi oo rabtay inay booqato waa la karantiinay 9 maalmood bay ku jirtay karantiin oo leeyma bixi kartid iyadii baa la xiray markii ay qayliyeen oo saxaafadda la hadleen oo xagga la hadleen aabihiisna Soomaaliya baa la lahaa haddaad tagtid ma soo noqonaysaa xagee waa la og yahay waa silsilad xiran inuu isagu dhalay wiilka cusbitaalka inuu u socdo waa la og yahay halkaasaa loo dhigay shaafta kale macnaha isagii baa la sii xanibaya Allahu akbar Sweden kuwa ilma lagaga qaatay Mareykan kuwa ilma lagaga qaatay Norway ha sheegin balanbalku meel walba waa yaala Turkiga laakiin ma moodeen aniga waxaan moodaa Turkigu Carabaha marxuum qaldaan wax la yiraahdaa ka jirta oo Soomaaligu hadduu dhinto waa iska dameer caadi oo baktiyay kama duwana iyo Carabaha de kulma ma aqaan Dubai laakiin Yemen baa ugu roon Yemen taa baabaday ma aragtay burburtay baa ugu roon Arab oo qofka Soomaaliga ah qiimo ka leeyahay iyo Suuriya labadaas ugu roon inta kale waxaad ka tahay dameer baktiyay iyadoo saas ah oo dameer baktiyay awalba laga ah isma lahayn Turkiga wiilka yar koomo ku jira inay waxayna u mar inuu lahaa wiilkayga meedkiisa isiya bimacnaa wuxuu aaminsan yahay sababta loo qarinayaa inay tahay dhimashada uu dhintay nin baa madaxa jug kaga dhuftay jugtii baa la qarinayaa buu aaminsan yahay cunsuriyadana lagu sameeyey waxa weeye waa runtii waxaan dhihi karaa geesi garab waaye baa noqonnay ilaahay keliya u sheegaya Israa'iil ma aysan samaynin Shirin Abu Aqla way dishay laakiin meydkeeda ma aysan qaadanin ma aysan karantiinin waa ay dileen caruurta Gaza laakiin waxaysan Israa'iil samaynin bay sameeyeen Turkida waxay عجائب من العجائب معناها يهود وادشا إسرائيلي معناها يهود وادشا عرورة فلسطين وادشا شارين تشيغا يا وقبل وريها هاي معناها وادشا لكن ميت كذا ما كرنتيمان كرنتين وما حرا لو ما سوق لي كرو لو ما دوان كرو وايدي كورونا فيروس صباح بالي ميت كلا ما بوقان كرو لو ما تي كرميت هاي tii oo kale baa lagu sameeyay xanuunada loo karantiinana cunuga ma hayaan macnaha qalliin baa la damcay in lagu sameeyo markaasaa la yiri infection baa dhiiggiisa laga helay macnaha waa qiil islaanta maxaa laga helay marka hadii cunuga laga helay islaanta maxaa laga helay ilaa cunuga dhiiggiisa baa laga helay islaanta maxaa laga helay hawl kale ka jirta ku faanaan inay Falastiin caawinaya dadka ooga soo hayaamay Turkidii tiri Soomaali caruur Soomaali baan caawinaya caruurtan waa kuwa sawiradooda fiiriya waa kuwa olaleynaya waa kuwa magaciisa wato waa kuwa luqadiisa ku hadlo waa kuwa xaafidul quraana Soomaali Maxamed Soomaali oo dhan waa ku codsaneen meydka wiilkayga inay siiyaan
sida ugu dhaqsiyaa badan waxaana ka codsanayaa qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka iyo kuwa u dooda xuquuqda carruurta inaana lagu aasi karin dalka turkiga oo lagu aaso halkan markalan ku soo celinayaa jirka ilmahayga anaa xaq u leh xayan oo mayyitan madaxweynaha arrintan ma oga dulmigana lagu sameeyey waa tahay wax yar kama codsanayo maxamed meydkiisa keliya turkida waxaan ka codsanayaa ilmaha soomaaliyeed ay ku dhibaataysan dalka turkiga culimmada ha aadaan sheekh mustafa xaaji ismaaciil ha aado sheekh umal ha aado sheekh maxamed idriis sheekh shibil shuyuukhda oo dhan saciid raage sheekh cabdishiishe cali suufi ha laga soo wado ilmaha soomaaliyeed ma bixi karaan hadday baxaan giriishiya saak baa la yidhaahdaa waddamada kale xuquuqay ku leeyihiin dhalashaa la siiyaa baasaboora la siiyaa intay ka soo baxaan turkigay leeyihiin soomaaliyaan caawinaynaa kuwii ag jooga ku dulman waxaan leenahay meydka ilmahana siiya subxaana wa tacaala rabbi subxaana wa tacaala ha u gargaaro cunugaas iyo jasadkiisa ruuxdiisii kolba tagtay siduu hadda sheegaya jasadkiisa ilaahay ha uga soo ururiyo wax kale aan odhan karaa ma jirto hooyada ayuu wacayaa wuu isku dayayaa inuu waco oo la hadlo iyadoo aan hadli karayn oo ooyeysa bal wax yar la dhegeysta ma la diiday inuu cidna la joogo ma la diiday may diideen okay waa aragtaa maamada walwalka ku taagan ma hadli karayso inuu la hadluu rabaa inuu la hadluu rabay ma hadli karayso waa hooyo kuwa waa gurigii bay joogaan gurigii hadde waa carruur gurigii joogta mid cusbitaalkii buu ka yaalaa waa laga karantiinay iyadii 9 maalmood bay ka maqnayd way sii ordaysaa hooyooyinka Soomaaliyeed meel kastay joogaan alla subxaanahu wa tacaala ha u gargaaro wax kale oo aan oranayaa ma jirto Soomaali waa dhiban tahay dhibaato haysata daafaha caalamka ee Soomaalidu ku dhiban tahay meelo badan oo dunida ka mid ah baasaa loo ooyaya علينا أنا طبعا روح بني آدم وإيه مرك درا إسكت بخدا أنا وأنا استحنون سنة براء منك إيه تالو مرك بردا سو قابالك أو بردا أني قلا هوش سكجرو كغيريو ما يا ها ما يقدر طبعا روح بيت كيسي ملا ما يا شاتيسي وحاله هلي إيه بكويس على لو بودا وجري ودا وقدقداي ساس درتو يا maalintii labaad qalbiga maqan waa maqanta qalbiga faqsan walaalisna waa ila jira marka uu dheega oo bartas ku gadi jiray marka maanta waxaan aan ma joogin tuula ka imaade oo buulo waxa la dhahay buulooyinkaas aajiri aadacsiyo aadi marka waxa dhaa qaliina macna buraa aan iu taalo qaliina ku soo raadina oo qaliin lacag la'aan ku soo raadina awoodde madam in oo qaliinkaas oo isbitaal ku geey madam laakiin qaliina ku raadina oo dhahay qaliinkaaseti maanta mabaxa qaliin lacag ku raadina mabaxayda isku ogaan xilligo inta imaadaya la banadan waa soo booday waxa dhaa aan meel taaganayo dhahay marka waa xilligaas abiyo wardambeeyay kobisa inta laga qaad ishaatigiis aad bay u garanaysaa wax kale ma ku arkin shabaha shaatiga garan shaatigu uu jiri inta laga helay bas iyo kobihiis wax kale ma ogiribo anaa bas ku dhaxaya casanbo waxyaabaha ilka ugu dila waxa kamid ah waxaas dhacaya hore laga ilaawaya meeshii dhag waa la nadiifinaya waa la ilaawaya waa la ilaawaya macnaha dadka waxa xusuusnaan doona gabadhan oo kale 10 carruur wax la biila aan haysan
haddii walaalo uu leeyahay hooyo aabe ninkaa dhintay bas dowladda Soomaaliyeed berrito dhacdadan waa ilaaweysaa waxdana kama leh shaqo kuma leh khalaas ilaawe macnaha waxaan waxyaabaha aadka la isu weydiinayo waxaa ka mid ah dadkii meel ay maraan bay la'yihiin wax isqaban kara maaha dadkii baa waxay la'yihiin meel ay maraan haddana baabuur qarax ka buuxa baa soo maraya oo qaraxya ajaa'ib waa silsilad iska xiran oo waa giraan wareegaysa oo magaranaysa loogu talagalay in dalkan laga qaxo nin dhalinyaro ah baan arkaya wuxuu leeyahay qof allaaliyo qofkii wax heli kara way isaga tag meesha isaga carar buu leeyahay waa taata la rabaa dalalka qaarna sida Falastiin oo kale inta la soo degay oo dhag baa laga qaaday kuwana dagaal iyo fawda laga kicinayaa gebigoodaba waa la qixinayaa sida Soomaaliya oo kale waa la qixinayaa hadda qaxeede 90kii ugu bilowday ilaa hadda waa la soo gurmayaa dalkiina kuwa lagu abuuranayaa iyagu dadka qaxiya ilaahu ummadda Soomaaliyeed u meel bixi intaas aan ku soo gabagabeynaya waxaan idinkaga tegayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.